بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة maalmahan waxaan ka hadlayay khilaafka axmed karaash iyo deni uu soo gebagaboobay shalay, wuxuuna ku soo gebagaboobay oo madax dhaqameedkii ku dhex jiray ay ku soo gebagabeeyeen axmedow faataxa qaado. فاتحة وأم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. waxaan xusuustay markaa xilligii koonfurtu ay daakhiliyadda qaadanaysay wakhtigaa. allah u naxariistay muuse boqor, juuje, ismaan axmed rooble, kutubo xoor, yacni ragga inta ay taariikhdu ay tilmaamayso ayaa markaa horboodayay siyaasada daakhiliyaddii. markii muqdisho laysugu yimi, raggii siyaasiyiinta ahaayee majeerteen raxamallahu calayhim kutubo xoor bay faq hoose la yeesheen. waa sida taariikhdu dhigayso. waxay yidhahdeen waxaanu weydiisanaynaa abgaal inay wasiira daakhligana siiyaan, annaguna aanu faataxa siino. laga yaaba dee isagana in ay hoos u wada hadleen. kolkii shirkii laysugu yimi, muuse boqor buu ahaa ninkii hadday, allah u naxariistee. dunyada rag baa ku noolaa. wuxuu yidhi nimanyow abgaal, faataxa qaata, wasiira daakhiligana na siiya. reerka la yidhaahdo abgaal waa culimo, waa reerka aad ka dhex helayso 100 nin oo xaafidul qur'aan ah. adduunku ha isbedelo, dadkuna dee adduunku la socdaa wuu isbedelayaa. abgaal waa aqbalay, sidii bay ku qaateen faataxadii. qoladalina sidii bay ku qaateen wasiirkii daakhiliga. xalqadani waa nafsa sinaariyo. axmed karaashow faataxa qaado, siciid deni waa tanaasuli waaye. ereygaasaa dheer. hadduu siciid tanaasulka aqbali lahaa, wax kalay noqon lahayd. laakiin markii siciid diiday wixii loo soo jeediyey oo madax dhaqameedku u soo jeediyeen inuu ka tanaasulo, axmed baa la yidhi axmedu faataxa naga qaado aanu kuu ducayno. shirkii sidaasuu ku dhammaaday. الحقيقة soomaalida raba marka inaan wax weydiiyo.
1956 ma la joogaa maya raggii maalintaa joogay ma nool yihiin maya maalin tagtay ma soo noqotaa maya waxaa siciidani raadinaya kama uu dhex raadinayo puntland wuxuu ka dhex raadinayaa muqdisho markaa 17 bilood ee muranka ah iyo 17 ka dambeeyo sii murmaya dadka puntland degan buu jilcinaya dabadeedna isagoo hoggaan uu ku watuu rabaa inuu la yimaado koonfur war horta waa in wax sidaa loo fahmaa laakiin dee koonfurtii baan koonfurta ahayn kutuba xoor rabbi ha u naxariistee waxay taariikhdu sheegaysaa inuu ahaa cabdalla caroone ismaan axmed rooblena waxay taariikhdu tilmaamaysaa inuu ahaa warsingeli abgaal horta adduunyada raggaas baa soo maray oo ku noolaa iimaan baa jiray qaniicad baa jiray akhlaaq baa jirtay qiyam baa jiray boob ku hoos jiro boob طمع uu ku hoos jiro bilxaqiiqa ummaduna ummad wanaagsan bay ahayd qodobka intaas ayaan ku dhaafaya labada gole sharci ma aha legitimacy ma aha ma metelaan masiirka Soomaaliya waxaan ku tilmaami karaa nooc min alwaali dimada wuxuu sheegayaa kuwa garoowe laga soo xulay ka hadli maayo kuwa laga soo xulay baydhabo iyo koonfur galbeed iyo xamar iyo kuwa dir waqooyi iyo dirka waxa malaa ka hadli maayo ereygaasi erey meesha ku jira maahan waa nafsa scenario waa 56kii dhaqankii 56kii oo si kala ah qodobkaana intaasaan ku dhaafaya saamiley ereyga la yiraahdo saamiley waxa isticmaala shirkadaha goorta ay dawladii Soomaaliyeed shirkad noqotay anigu ma garanayo marka waqtigan maanta la joogo oo dhinaca siyaasadda laga hadlayana dad baa la rabaa in la dulmiyo bal idinku ogaada qofka ay saamilay ka soo baxdo ogaada idinku qofkana waa inaad garataan ujeedada uga soo baxaysana waa inaad garataan cid baa la rabaa in la dulmiyo oo kuraastoodii la qaado meel ay saamilay ka soo gasho siyaasadda baanan ba garanayn مثلا حزب سياسي نكا فرطي مساملي به ومايا وإري أدوحن وإدتمقى مركان مغلو قفك أن كم مغلانا إنكاري كوكو دعضي بان هذا ساملي وحلا يرادا مجرتو تلك الدولة بوليه هاي
4.5 bay ku fadhiyaan waagay axsaab u gudbaan ha ka sii shaqeeyeen mid mucaarada iyo mid muxaafida ninka doonaya inuu wax boobow inta 4.5 ay jirto ma boobi kartid nin walba wixiisii buu ilaashanaya nin walba xuquuqdiisii buu ilaashanaya nin walba xuquuqdiisii buu gacantaa ku haystaa markaas saamiley iska ilaaba nimanka ku riyoonayo ay dani uga muuqatay saamiley war ma jirtee iska dhiga meelo kale uga wareega 4.5 subaxa ay baaba'do wixii lagu heshiiyo ba ansax noqonaya qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين إلهو نبضل كابرين إلهو كوة الدنيا كف السادة هنجيرين إلهو كوة آخره هو هلاقنا هنجيرين الحقيقة